السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا وناكسن أصحابي فضلا channelka youtube-ka subscribe-ta iyo like-ta share-ta comment-iga abuurda media halkan naga daawanaysa waxaana la haya waa Cabdiraxmaan Buurdhaab saaxiibkeen qaaliga ahaa yaamahan dambe mashquul baan ahaa waan ka maqnaa hawada amakaan tuu bilaabaya muuqaaladeena iyo xogaheena aan ku kala qaadan jirnay baraha youtube-ka sidoo kale facebook-ka halkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo saxafiyiinta Somaliland diidka ee qaran dumiska lambar 1 waxa weeye ninka la dhaca Cabdirasaaq Teera hore wuxuu u soo duubay muuqaalo propaganda oo qadiyadii qarannimada Somaliland lagu waxyeeleynayo oo ka soo buunbuuninayay ciidamadii caare haddana wuxuu soo duubay muuqaalo iyo documentary sheegaya Somaliland tacadiyay ka geysatay gobolka Sool magaalada Laascaanood iyo xasuuq baan ninkaas waa qaran dumis waa cadowga Somaliland dhammaan laamaha ammaanka iyo cidda ay qusayso iyo ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanayaa cidda gacanta ku soo dhigtaa in sharciga la waafajiyo sidoo kale waxaa ka mid ah saxafiga la dhaho Cabdimaalik Muuse Coldoon oo hore u aflagaadeeyay iskuulkii Abaarso taa dadku way taageerayeen taageerabu ka helay oo waxaa la lahaa iskuulka dhaqan xun baa lagu bartaa laakiin isagoo mabda'yo argagixiso ku hoos jirto iyo waxyaabo noocaasi oo dhaqdhaqaaq la leh xidhiidh la leh ururka xagjirka Al-Shabaab wuxuu maalintii dhaweyto weerar bareero caddaan oo afka ku qaaday hooyada qaranka Somaliland Marwo Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo loo yaqaano aan ku shaqsi ahaanteedii bulshada Somaliland inay tahay qof jecel horumarka Somaliland qof jecel qarannimada Somaliland anigu adna maanta waxaan ka dhigi lahaa hadii la weydiinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxaa ka mid ah saxafiga la dhaho Bakayle wuxuu ka mid ahaa saxafiyiinta ku sugan magaalada Hargeysa anigu markii aan warbaahinta ku soo biiray dushan baan iska naqaanay laakiin aad sumaana noqon muddooyinkii dambe wuxuu Bakayle caadaystay ayda aflagaadada propagandaha madaxda qaranka Somaliland sidoo kale isagoo propaganda iyo warbixino been abuur ka sameynaya ciidamada militariga Somaliland ee jidda hore Gooja Cadde dhammaan saxafiyiinta intii sheegay waa dambiilayaal dalka hadday ma soo geli karaan dowladda Somaliland waxaan ugu baaqayaa goob kasta oo ay dalalka ay ku dhuumanayaan iyo wadamada jaarka ay joogaanba inay codsiyo u dirto si loo gacanta loogu soo dhigo kadibna loogu maxkamadeeyo gudaha Somaliland intaan ogahay waxay ku sugnaayeen Bakayle iyo Teeraba Istanbul waddanka Turkiga isagu qadiyadda Somaliland ma ogola sidaan la socono in Soomaaliya kala go'do ma ogola wuxuu ogol yahay Soomaaliya midna dhici mayso hore u dhici lahayd reer saxaaq lahaa markii horeba Soomaali mida sameynayay kuwiina way go'een Republic of Somaliland baan la dhahaa naga waana la aqoonsanayaa xilli kastaba ha noqotay South Sudan ba waa la aqoonsaday marka halkan muuqaalkeenu taasaan ku eegyahay insha Allah muuqaalada dambe iyo dhacdooyinka dambe ayaan ku soo bandhigi doonaa mid kasta oo qaran dumis ah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.